gudoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi oo kulan la qaatay isku duwayaasha wasaaradaha kala duwan ee ka howlgala gobolka Togdheer kulankan iyo ka qabsamay xafiiska badhsaabka gobolka Togdheer ayaa inta badan waxa laga hadlayay abaaraha iyo biyo la'aanta soo foosaaray deegaanada hoos yimaada gobolka Togdheer sidoo kalena badhsaabka gobolka Togdheer waxa uu sheegay inay ka qayb qaadanayaan gurmadka loo sameeyo dadka ay saameysay abaarta iyo biyo la'aanta soo foosaartay waxana uu yiri maanta waxa ay isniin bisha ay tahay waxaan noo qabsoomay shirkii caadiga ahaa ee isuduwayaasha runtii shirka waxaan kaga hadlaynay xaaladaha ka soo cusboonaaday gobolka ay koow ka tahay biyo la'aanta baahsan waxaan isku xogaal wareysanay wasaarad walba wixii maaragtay dhowrkii isniinood aan kala maqnay wixii ku soo kordhay waxaan ugu qabsoomay shirkaasi jawi degan oo isafgarada waxaan isla garanay inaan heegan buuxa u galo sidii maaragtay aan ula socon lahayn xaaladda abaareed ee nagu soo fooleeyay biyo la'aanta marka runtii shirkaygu intaas uu ku saabsanaa Nuux Maxamed Cabdi badacas 24 TV magaalada Burco.